السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلامي haddii aad noqon sabtaa nagu soo bir haddii hore la joogto ku maasantaa la joogaayo waxaan soo qaadan doonaa muuqaal yar aan u arkin inaan bulshada usoo gudbiyo muuqaalkaasi waa wuxuu ku saabsan yahay naxariis dabcan wiilkii waxaa loo sameynayaa service ama sida u taqaanid howl ayaa loo qabanayaa howshii loo qabanaya abaalkeeda ayuu maanta inuu gudo rabaa dabcan isla eegna wuxuu sameynayaa مشاك وذا مرا الفوقان نقاري انت غدا كتجي كرا على الدالي صعودون ولقاد كاملين طبعا ما ضرتين وحلو عسي كبها maalintii horeeto kabiya ayaa loo caseeyay dabcan TikTok ayuu soo dhigay dabcan filayo laakiin maanta waxa uu sameeyaa wixii ka duwan wixii shalay loo sameeyay waxa uu rumaaday gabadhii meesha ku iibinaysay alaabta iyo cabitaanka iyo kabaha ku caseeynayay dabcan nolosha qof walba sida uu la hargamaya hada wiilay gabarba qof walba sida uu noloshiisa ugu soo dhacsanay laakiin haba ku ahaatay wiilkan waxa uu sameeyaa inuu maanta u abaalgudo maadaama ay tahay qof dumar ah haddana ku ganacsanaya laamiga dhinaciisa waxa uu sameeyay waxa uu soo qaado waraaqad oo ku maasantaa hawsha aad qabatay laakiin waxaan ku siinayaa gifti gabadhii waa waxa ku yiri maanta waxa aan sameynayaa sida aad aragteenba aniga ayaa caseynaya kabahaaga iyo miidibta oo fadhiiso wiilka ayaa hawsha qabtay dabcan waxay ku tusaysaa insaanimada qofka bini'aadanka intee leeg tahay qofka bini'aadanka hadduu uu sameeyo in yar oo naxariisa adiga naftigaaga waxa qof walba waxa uu jecel inuu naxariisto laakiin maxaa diiday in qof maskiin ah oo la meedinaysa fadhi kabana caseenayo in loo naxariisto muuqaalkayga xigana waxa uu yahay dabcan oday maskiin ah oo yaa war idinku daali ku hore ila daawado sida aragteenba gabadhii waxay si toos ugu imaaday odaygaasi meel nadaafada hagaajinayay waxay ku tiri yani si kadis ayay u dhigaysay waxay doonaysay inay mask ka siibto laakiin waa uu qadiiday lakaasiga ayaa iska bixiyay maski kadibna waxa uu ku dhahay dabcan sida hadalka ay ahayd maxaa doonaysay laakiin ma uusan fahmin si uu fahmo maadaama ay ka halawday gabadhii wuxuu ku fahmi doonaa qofkani aad maanta halkan iyo surprise ka ugu dhigtay laakiin odaygii maskiinka uu fahmi waayay laakiin gabadhiisa mask ay iska furtay kadibna waa uu shakiyay laakiin waxay ku tiri ha shakinin waxaan ahay gabadhaada aad ay u barxay hab ayuu na siiyay runtii waxay ahayd surprise ajaayib ah ee uu sameeyay gabadhiisa maanta duuliyo asigana waxa uu meeshaasi ku soo waxbaray dadaalkiisa iyo juhdigiisa kaliya shaqadaasi maanta uu haystay haddii aad ka hesho muuqaalada ka xigana waxaan ku leeyahay fadlan nala joog muuqaalkana sheekada asxaabtaada nagaasi oo ku maasantaa la joogaaga maasanid